ay ka wada hadleen sidii xal looga gaari lahaa sarakaca ku yimid lacagta dollarka iyo saameynta lacagtaasi qalaad ee dollarku ay ku yeelatay shilinka Soomaaliland madaxa hawlgallada shirkadda Dahabshiil Cabdiraxmaan Cali Xaaji Xasan ayaa si faahfaahsan uga hadlay qodobadii ay isla qaateen mudanayaasha gudida dhaqaalaha ee golahaasi guurtida maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bishii saddexaad 2017 golaha guurtida gudidiisa qaabilsan dhaqaalaha ayaa halkan noogu yeeray inay naga xog wareystaan bal xiriirka ka dhaxayn karaya ama inuu jiro sicir bararka iyo mobile money transferka bal inuu ka dhaxayo xiriir iyo inaanu ka dhaxayn naga wareystaan warbixin ka siino runtii waanu ka warbixinay waana si fiican waa isula afkaranay waa isula fahanay waxaanaanu u ballanay in la sameeyo daraasad dhaba oo dawladda iyo ganacsatada qaybaheeda kala duwan ay ka qayb qaataan annaguna dhinaca iyaga diyaar baanu nahay wax kasta oo dalku ku hagaagayo inaanu maskax iyo muruq iyo maal intaba gelino diyaar baanu nahay annagu haddaanu nahay Dahabshiil oo leh adeegan iyo dahabka waxaanu nahay shirkadda lacagta hard currency-ga ugu badan ama lacagta adag ee ugu badan dalka soo gelisa marka waxaanu anagoo filaynay inaanu qayb ka qaadano dalka horumarkiisa iyo sicir bararka hoos u dhigidiisa laakiin maanaan filaynin in su'aalana laga weydiiyo sicir bararka inaanu qayb ka nahay in kale maanaan filaynin runtii haddaynu ka hadalno sicir bararka had iyo goor wuxuu ku xidhan yahay guud ahaan importka iyo exportka dalkaas hadba intuu caalamka u baahan yahay iyo inta isaga loo baahan yahay ayaa lacagtiisa qiimaheedu uu ku xidhan yahay shayga labaad ee soo raaci kara waxa weeyaan central bank dalkaasi leeyahay marka uu lacagta soo daabacayo in la sameeyo qiyaas dhaba oo la hubo oo ku fadhida tirada dadka dalka ku nool dhankoodana Cali Maxamed Saalax Cajib iyo Cabdiraxmaan Aadan Shire oo ka wada tirsan mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda Telesom ayaa si mug leh u soo dhaweeyay go'aankii ay isla qaateen mudanayaasha gudida dhaqaalaha ee golahaasi guurtida Soomaaliland oo wax laga qabanayo sarakaca ku yimid maciishada qutul daruuriga horta ugu horeyn aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland gudigiisa dhaqaalaha oo noo yeeray runtii duruufta iyo xilka ay gudanayaan waa duruufta waayaha dhaqaale ee dalkeena ka jira iyo qiimo dhaca runtii lacagteena shilinka ku timid in la iswareysto oo xog la kala qaato oo talooyin wanaagsan ay ka soo baxaana runtii waa waayeelku oo waxa ay ugu yeedheen runtii shirkadaha ganacsiga ee anagu aan ka mid nahay runtii anigoo ah madaxa adeega zaad service ee shirkadda Telesom magacayguna yahay Cabdiraxmaan Aadan Shire gudiga dhaqaalaha ee golaha guurtida waanu kulannay waxyaalo badan oo kale maartay arrimaha baanu ka sheekaysanay arrimo badan oo runtii duruufaha dhaqaale ee dalku marayaan wax iska weydiinay waxaana runtii isla afkaranay ahmiyadda ay leedahay in wada tashi iyo maaragtay waxa weeyaan arrimaha lagu maaragtay waxa weeyaan maamulo gabagabadii kulankaasi xog wareysiga ahaa ayaa waxaas gudoomiyaha gudida dhaqaalaha ee golahaasi guurtida xildhibaan Yuusuf Cabdilaahi Cawaale محمد وعلى آله وصحبه وسلم saaka oo bishu tahay 2016 waxaanu halkan iskugu yeernay shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha oo aanu iska wareysanay العقباتها جرا إننا وحسك ويدينه سوى نكسرنا وانو اسكو أفكارنا
si wanaagsanna wixii jira waanu iskaga warramnay ama way nooga warrameen waxaanu uga mahad celinaynaa xogta ayna siiyeen oo ah xaqiiqatan tii dhabta ahayd iyo waxa imika adduunyadu in ay marayso waqtigii technology-ga ee ay ka gudubtay waqtiyadii hore wixii lagu shaqayn jiray kaasoo isagu systemkaasi wada sahlay waxa la wixii aad u baahan tahayba aad daqiiqada gudahood aad ku helayso wixii jira iyo sida ay diyaarka ugu yihiin ama ay horaba ugu haayeen inay taakulaynta qarankooga iyo kobcintiisa inay diyaar u yihiin awalna diyaar u ahaayeen qayb libaaxna ay ka qaateen oo haddaanay iyagu anay technology-gaasi inala barbar soconna waxyaalo badani ay naga dhimaan lahaayeen ama ay naga dhimiba lahaayeen sidaa daraaddeed yeedhitaanka iyagii waanu uga mahadnaqaynaa wixii aanu isweydiinayna waanu isku afgarannay waananu isku soo noqon doonaa waraysiguna iyo wax isweydiintuna intan ku dhammaan maysee sidii awalba ay ahayd wixii kolba aanu uga baahno ama ay nooga baahdaan diyaar baanu iskula nahay